dhammaantood dadweynaha ka soo qayb galay waddani aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay hortay aanu ka soo qayb galno halkan waxa weeyaan sida ay noo soo dhaweeyeen ayaanu ku faraxsanahay waxaan idinku salaamayaa magaca islaamka salaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh bacda salaan aad iyo aad bay muhiim noogu tahay inaanu ka soo qayb galno maanta xafladda tan annagana loo dhigay oo nala ku soo dhaweeyey oo dhulka fogfog laga yimi hadda ilaa berbera ayaa wafdi ka socdaayay si uu annaga noo soo dhaweeyo marka gudoomiyaha iyo inta ka soo shaqaysay iyo sida naloo soo dhaweeyey aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin ilaah baa mahad leh waxa mahad labaad leh dadka beesha warsangeli iyo ciddii kale oo ku xidhan sida hadda baar sheegaysay oo ay ka badan yihiin labada qayboodba waxa weeyaan waanu ka ballaaran lahay labada qayboodba dad badan oo warsangeli ayo warsangeli dadka ma garanaysaa isku xidhan yihiin oo walaalaa yihiin waanu ka badannahay waa runteed intaba waanu ku nimi aad iyo aad baan ugu faraxsannahay soo dhaweynta naloo soo dhaweeyey iyo milgada naloo soo dhaweeyey iyo sharka wanaagsan oo noola qabtay annaguna waxaan ku sii faraxsanahay dadkaygii maadaama yimaadeen anigu maqasdhameedkii baan ahay reerka mid ka mida sida dadkaygu u yimaadeen maanta milgada tan sharafta lagu soo dhaweynayey oo aanay cidlo ugaga dhicin ee ay dadkii soo dhaweeyey ugu abaalgudeen inay indhahooda buuxiyaan oo ay u yimaadaan iyagoo ujeeddadu tahay midnimada xisbiga waddan inay la midoobaan iyo in ay milgadooda muujiyaan iyo meesha u socdaan inay muujiyaan meesha u socdaan waa waddani meesha ku socdaanna waa dawlad la wadaago iyo wax la wadaago iyo mustaqbal dhowo wax la wadaago waxa weeyaan taasina waa ta kale waxaan baaq ugu dirayaa anigu maadaamaan hayn madax dhaqameedka hartiga mid ka mid ah beelaha harti meel kastoo joogaan ee Somaliland fikirka aanu qaadanay oo ah in dadku ay waddani noqdaan oo waddani galaan ayaanu ku soo dhaweynaa ugu baaqaya aniga ayaa ka turjumaya salaadiinta kale markay maqan tahay waxaan leeyahay salaadiinteeda maqan walaalahaya anigoo ina ka turjumaya dadkeena waxa weeyaan yay isku habsaamin yaan fooda la isu gelin xisbi hadda ay ka soo daaleen ayaanay ma garanaysaa ku dambayn waxa weeyaan isbedel baa la doonayaa xisbiga waddani anigaa la shaqayn jiray annagaa la soo shaqaynay waynu siinay wakhtigiisii wax walbi wakhti bay leeyihiin waxa la yidhi bidaaya wa nihaaya bay carab tiraahdaa wakhti waxaa leeyahay bilow iyo nihaayad xisbigaasi waddankii aynu dhiibnay iyo xukuumadda aynu dhiibnay iyo ummadda aynu dhiibnay waa ta laga cabanayo waa ta leeyahay waa la iibinayaa waa ta leeyahay dekedeedii baa la iibinayaa jidad baa la samaynayaa inaan lahayn waxaa la gelayaa ma garanaysaa saldhigyo aynaan wadan dadkiina la doonaya in xoog lagu kaxayo la yidhaha xoog ku qaata marka shacbiyadeennu dee xoog ku qaadan mayno in xoog wax laynagu marsiiyo maaha marka waxaan leenahay waxa lagu bedeli karayaa dagaal maaha cayb maaha waa cod iyo isbedel hay marka intaa ka bacdi waxaan baaq u dirayaa gaar ahaan haddana gobol marka la yidhaahdo gobollada bari dhammaantood bari iyo galbeed baa laynagu yidhi galbeed iyagaa bari noo bixiyey marka annaguna waxaan leenahay war haddaynu bari nahay wixii bari ka balod waa taqaaniine war innaguna aynu mabda yeelanno aynu isku raacno oo aynu wax ku yeelanno ummaddana kula wadaagno baan taana ka soo jeedinayaa bariga sanaag waxaan leeyahay bariga sanaagow waad ogtihiin waxaad ku cabanayseen cabaadka maalin baa laga baxaa waa la godoomiyey waddankaas waxa loo geeyaa maalinta la baxayo oo wax la tarayo ciidan dhowr kuna baa la geeyaa si rabshad uga dhacdo dadna loogu laayo haddeer waxay ka dhacday dhahar waxay ka dhacday meelo kale laasqoray habeen baa lagu guday cid ku soo dhawaysay iyo cid tirkaale iyo cid kale xidhan ma jirto haddii dad meesha degaan ku yahay oo Soomaaliland yahay waa loo sheegaa madaxii waa tii sheegtay waa soo soconaa noo diyaargarooba laakiin mugdi in lagu gudo habeen lagu qabsado dadka la siiyo maaha taariikhu ma yahayn tagistii laasqoray xisbiga waddani ee xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha waxay u ahayd baal madow been bayna ku soo ballan qaadeen waxay soo ballan qaadeen lama hayo mana sugayno marka waxa weeye aad baan noogu daalay inaan lala shaqeeyo dadkuna xuquuqda sahlaan Somaliland waa laga waayay waanu ku noqonnay
waan shirar gaar baan ula galnay madaxtooyadan ku wada hadalnay waa laga maqli waayey cid baa wax laga maqlayaa aan dadkan dan ugu jirin iyagan dan ugu jirin waxaan ku soo gabagabeynayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waanu ka jawaabi doonaa sida aad noo soo dhaweyseen sidaa uu hadda sheegay garaadku dib bay ka badan doontaa marka aad iyo aad baan waxaan ku soo gabagabeynayaa yacni waxa la yidhi nin baa wuxuu yidhi geeyigaa hadlaayo gabagabadii wuxuu yidhi geelba markuu rimo sanad wuxuu gudhnaadaba guga kale markuu dhalo markuu gaasbaxa yahay caanihii ku gaaxdaa laga kala guraayo dadkii goomanaa baa gaajada ku reeba waxaan malaynayaa gaajada reebayaan reer Soomaaliya haddii xisbiga waddan u soo baxo guddoon u soo baxo aad iyo aad baan mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayaad u mahadsantahay adiguna suldaan iminka waxaan ku soo dhaweynayaa caaqil iimaan madar caaqil iimaan madar ku soo dhawow caaqil iimaan ma jooga ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم